war-saxaafadeed ka soo baxay komishanka doorashooyinka qaranka Somaliland ayaa waxaa lagu sheegay in komishanka doorashooyinka Somaliland ay xafiiskooda ku qaabileen wafdi uu hogaaminayo madaxa xafiiska UK ee Somaliland Mudane Elias oo ay weheliyaan saraakiil kale. booqashadan oo ujeedkeedu ahaa baa lagu yidhi kulan isbarasho. kulankaas ayaa sidoo kale lagaga wada hadlay baa lagu yidhi arrimaha u diyaargarowga doorashooyinka soo socda ee Somaliland. komishanka doorashooyinka ayaa iyaguna dhinacooda warbixin ka siiyay baa lagu yidhi wafdiga howlaha u diyaargarowga doorashada ee imika socda, sida dhamaystirka sharciga ee golaha baarlamaanka, soo saarista liiska kama dambaysta codbixiyayaasha iyo diyaarinta qorshayaasha iyo miisaaniyadda doorashooyinka. waxayna wafdiga UK ka dalbadeen baa lagu yidhi sidii ay u taageeri lahaayeen shaqada komishanka doorashooyinka qaranka ee hirgelinta doorashooyinka. waxaa xusid mudan in kulankaasi uu ka maqnaa xubintii komishanka doorashooyinka qaranka ku metelayay xisbiga wadani oo maalmihii u dambeeyay la sheegay in 6 xubnood ee komishanka doorashooyinka qaranka Somaliland ay dacwad ka gudbiyeen. bishaaro shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ugu bishaareynaysaa macaamiisheeda sharafta leh inay u soo kordhisay xirmooyinka adeega Dhamays Plus. waa xirmooyin mobile internet unlimited oo aad u qiimo jaban, kuwaas oo shirkaddu ay ugu talagashay macaamiisha shirkadda isgaarsiinta Somtel. macaamiil ku shuba $5 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanaynin muddo 7 ah. sidoo kale macaamiil ku shuba $15 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanaynin muddo bil ah. macaamiil ku dooro xirmooyinka adeega Dhamays Plus xawaare sare oo aan xaddi lahayn. macaamiil uga shubo xirmooyinka adeega Dhamays Plus adeega idahab code numberka xidig 114 gees, adeega idahab reseller code numberka xidig 304 gees. ugu dambeyntii waxaad bedelan kartaa airtime-ka kuugu jira adigoo garaacaya code numberka xidig 204 gees. macaamiil xirmooyinka adeega Dhamays Plus nafsadaada ku soor.